dabdamiskii magaalada Dhaab waa la keenay gabanaha aad baan u mahadinay dawladdiisa waayo waad ogtahay iskuulka Dhaab secondary inuu laba jeer hadda uu maray inuu gubtay ma hadana county government kan u jeedinaya maadaama dabdamiskii la keenay waxaan leenahay dabdamiska in la ilaaliyo waqtiga ku haboon dibka uu jiro dabka kaca in la isticmaalo oo san suxun loo isticmaalin man ayagana aan ka rajeynay dad cusub waxa jira ka soo laabteen meelaha lagu eedeynahay in ay macnaha gacanta ku hayaan dadkaas oo nabadgelyo daro sheegteen soo gadoomeen kuna aan malaynayna xisaab inay gaaraan 10,000 oo qof laakiin deegaan ahaan anaga waxaan leenahay siyaasiyiinta halkan joogto 10,000 ee ruux haddii hay'adda WFP raashin siinayso waxaan rabnaa dawladda Kenya inay ogolaato dadkan ayaga in la diiwaan geliyo UNHCR registerkeeda haddii la sumeyn waayo dib ayay keenaan hadduu ruuxu raashin uu helay meel uu seexdana aan la hubin meel uu seexana la garanayn qatarteeda leed hadda waxaa bilaabatay kacaan in gawaarida dhaxda loo galo oo ma aragtay shufta iyo ma aragtay dad ma aragtay falxun xootiga haweenida loo dhacayo arrimahan waxa keeni kara 10,000 ee qof salna loo hayn oon la rajaysta gareynin dawladana waray ka hayn waxaa maanta UNHCR ay noo sheegtay in 10,000 oo qaxooti oo la rajaysta gareynin ay soo galeen UNHCR-na ay dhahan in ma aragtay awood ay u lahayn marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in ma aragtay qaxootiga 10,000 la rajaysta gareeyo la dajiyo haddii la yeeli waayo waxaa dhici karta inay nabadgelyo la'aan ay noqoto oo ma aragtay si kale isku bedelaan host community ayaga ay ma aragtay madax isgashtaan xoolaha host community ay dhacaan marka waxaan dawladda ka codsanayaa in dadkaasi degdeg waxaana UNHCR-na waxay noo sheegtay in ma aragtay national government ay dawladda dhexe ay diiday inay registerayso marka waxaanu leenahay asylum seeker waa in la soo dhaweeyaa hadduu nabadgelyo la'aan ka soo cararay waa in qaynuunka adduunweynaha ku dhisan tahay in la dejiyo in ma aragtay la soo dhaweeyo in ma aragtay intuu ma aragtay wadankiisa nabad ka noqonayo oo nabadgelyo la siiyo marka haddii la yeeli waayo waxay gobolkan ama degmadan Dadaab sub county u keenaysaa nabadgelyo la'aan bay u keenaysaa tuugada badanaya